بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. marka hore ilaahay ma hadle ilaahay baan mahadnaqaynaa marnabaadkana runtii shir jiraayadkayga saaka wuxuu daaran yahay warkan maalmahan u dambeeyay soo baxay ee ganacsadaha weyn ee muwaadinka ah ee reer Somaliland ee Axmed Cismaan Geele oo runtii tijaarta waaweyn ee wadankan leeyahay ganacsada weyn oo muwaadina oo waliba dadka ugu laxajxarada balan dalkan ay ku saabsanaa ee ahayd in fadeexad iyo xarig uu jiro qabasho la qabanayo oo la leeyahay waxa loo qabanaya deyn ugu leeyahay taasoo runtii fadeexad ganacsadaha la fadeexadaynayo iyo dariiqo qaldan oo sharci oo cadaalad darro oo loo soo maray arrinkiisa dadka ama ibn aadamku waxba isku laakiin kiiska madaniga wuxuu leeyahay dariiq loo maro ibn aadamku waxa leeyahay sifaay ku xisaabtamaan tani waa cabrin iyo cagajugleyn waa dariiq qaldan waa cadaalad darro dariiqa loo soo maray waxaanu kala mid nahay beesha gobolka Hawd salaadiintooda iyo waxgaradkooda iyo dareenka ay ka bixiyeen ayaanu kala mid nahay oo ku taageersanahay in ay muwaadinka arintiisa salaadiinta beelweynta gobolka Hawd ay isku taageen albaab walba in ay xaqiijiyaan oo ay ka gungaadhaan in ay isku taageen albaab wal oo ay isleeyihiin xog baa ka helaysan ama waa kala xaajoon karaysaan halka waxay salaadiintu cadeeyeen in aanay jirin cid haba yaraatee inaanay jirin cid haba yaraatee ee ay arintooda u soo joogsatay ama ka jawaabtay ama kala xaajootay ama albaab wada hadal furtay aanay jirin halka waxay tageen ilaa ugaaska halkaana waxay tageen ilaa cidii wuxuu sheegnaysi halkana waxay kala hadleen cid kasta oo arinta muxuu ahaayay ay gashay salaadiintu halka waxay xaqiijiyeen inaanay jirin cid haba yaraatee arinta ka furtay albaabka wada hadalka amaba inay arinta ay ka wada hadlaan ama ka qarsanay jirin ee salaadintu cadeys waxay isu taagtay albaab kasta oo aan haba yaraatee cid u joojisay aanay jirin waxaanu leenahay soo jeedina marka ay sidaa tahay oo salaadiinta gobolka Hawd iyo uqaashooda ay ku horeeyeen wanaaga iyo wada hadalka oo ay cid kala hadli weydii oo cid la hadashay ay weydii waxaanu ku raacsanahay dareenkii ay ka qaateen baan ku raacsanahay oo aanu ku taageersanay oo ku garab taaganay waxaanu leenahay muwaadin kasta oo reer Somaliland cadaalad buu baahan dalkana wuxuu ku dhisay waa cadaalad dalkana waxa burburiya waa cadaalad darro waxyaabaha soo muuqda ee aanu arkayno ee runtii rag ay ka hadlay ay ka hadleen waxay u badan yihiin cadaalad darro waxyaabaha dalka burburiya muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu helo cadaalad waxaana loo baahan yahay dadka kuraasida ku fadhiya ee qalinka u haya in cadaalad ku dhaqaan oo dadka ay cadaalad sameeyaan oo muwaadin kasta cadaalad helo oo qofkii wax loo sheegay cadaalad helo oo cadaalad ku xisaabtamo oo cadaalad ku helo gartiisa ayuu leeyahay waxaan leenahay tani waxay tahay waa hordhac aanu runtii ku taageerina salaadiinta beelweynta gobolka Hawd waxaanu dooni doonaa xogaha ugu badan waxaanu ka hadli doonaa mar labaad annaga oo runtii xogaha ugu badan soo helnay ayaanu cadeyn doonaa halka arintaas iyo waxa imaka aanu ka taaganayna waa taa aanu sheegnay waqafkaanu ka qaadanay waa ka aanu sheegnay waxaanu cadeyn doonaa mar labaad xogta ugu badan baanu baahin doonaa hadii Ilaahay ka dhigo gacanta ku haynay ma ku raadinayno waxaan leeyahay muwaadinka Axmed Cismaan Geele waa muwaadin reer Somaliland waa muwaadin runtii aan muxuu ahaayay geyn in loola dhaqmo sida loola dhaqmay agaasimaan yaryar waxa jugleeyaan waraaqahana maanta cid furtay cid aan dafirin mas'uuliyadda Somaliland waxay caadaysatay in ay shicibka ay ula dhaqmaan si aan runtii indhala'aana oo wax dadkoo dhimi ogino meediyaha ku jira oo cadaana oo la wadoogiyo dhugmidkooda oo la wadoogiyo cid laga wada hadlay in ay dafraad cad soo taagan شارع iyo midyaha
in difaaca soo taagan bay ay caadaysteen arintan waxaan leeyahay muwaadiniinta Soomaaliland cadaalad bay u baahan intaas ku soo dalkuna cadaalad buu u baahan dalkana cadaalad darrada dumisa cadaalad darrada dalka laga daayo ayaan leeyahay sallam waxaan halkan aan maanta u fadhinaa inaan ku qabano shir jiraayid oo taageero aan ku taageerino salaadiinta iyo odayaasha iyo waxgaradka beelweynta gobolka Hawd oo aanu la barbar taaganahay taageerada iyo hadalka ay u fidiyeen ganacsadaha weyn Axmed Cismaan Geele oo dacwadi kaga socoto waddanka Djibouti dowladda Soomaaliland ay warqad ka soo saartay ay leedahay wala soo qabanaya ninka waxaan halkan aanu ka sheegaynaa haddaan nahay beelweynta Garxajis iyo guddigeeda guud inaanu barbar taaganahay go'aamadii ay qaateen salaadiinta beelweynta Arab ee aanu mataanaha nahay oo aanan annaguna aqbali doonin in si yaroo fudud ninka la yiraahdo ganacsade Axmed Cismaan loo gacan geliyo Djibouti sababtoo ah anu muwaadin oo waddankiisii jooga Djiboutina oo waddan kale oo waddanaynan inagu saaxiib ahayn dhow waayo waxay u adeegtaa dowladda Soomaaliya oo ay ka taashay dowladda Soomaaliland xuduudkeedu wuxuu ka bilaabmaa saan anagu aqaano beledweyne ciidamadeedu joogaan diyaaradaheedu ku degaan dowladeedu tagtaa iyo wixii ka sheeya marka ma aha in loo gamacduubo ama loo luga qabto ama muwaadin reer Soomaaliland Djibouti waanay waxba inaga dhaxaynin in loo gacan geliyo ama loo waarido waa arrin laga xumaado weeye waliba waxaanu dareensanahay in kuwa shalita yimi ee ka socda Djibouti ay u socdaan inay mar labaad maxkamadihii ay la doonayeen inay ku maxkamadeeyaan ina Geele Djibouti ay u soo wareejiyaan halkan oo si cadaalad darro ah la yiraahdo maxkamadihiina loo geliyo halkan ugu qaada waxaan uga digaynaa dowladda Soomaaliland inaanay ku kicin muwaadiniinteeda ay xaq dhowrto oo aanay ku kicin inay waarido dadka maartay xuquuqda ku leh ee muwaadiniinteeda ah ee degan waddanka ee ka ganacsadayaasheeda waaweyn ah ee ku tiirsan dhaqaaluhu waddanka ku tiirsan yahay inaanay ku takrifalinaanay arrimaha caynkaas ah iyo kan ina Geele ee maanta socda marka dowladda Soomaaliland ha ka fiirsato waxyaabaha caynkaas u dhacaya siyaabaha ay maxkamaduhu u shaqeeyaan maaha si cadaalad ah imaka waayo waxaanu aragnaa falalka caynkana ee la soo saarayo ee wasaaradda cadaaladda ay ku kacaysaa inaanay ahayn wax inay tahay wax ka horjeeda dhaqanka sharciga islaamka dhaqanka Soomaalida iyo sharciga kale ee islaamkaba wax ka horjeeda weeyaan waxaan ay ku kacayaan maxkamadaha iyo dowladda wasaaradaheedu marka waxaan uga digaynaa dowladda mar labaad iyo mar saddexaadba inaanay ku kicin falalka la soo qoray iyo waxa la maleegayo ay wadaan Djibouti oo inay joojiyaan oo halkeeda ku qabtaan haday beeniyeen oo yiraahdeen warqadii naga soo baxday been bay ahaydna been iyo run iyo wax kastaba waa idinku baad soo saaraytana idinku baad warqadana soo saaray oo shaambadeeyay beentana idinku baa sheegay waxa u maleegaysan waa la garanayaa hal la joojiyo waan leenahay maqalka ay reer Soomaaliya oo maqleen ku baraarugeen Axmed Cismaan Geele ina Geele Arab baa Djibouti rabtaa loo gudbinaya maqaasa waliba dhamaan saraakiil dowladda ka agaasimayaal guud iyo wasiir raacaysan warqad soo qabasho oo amra taasina waxa noqotay fajax kale Soomaaliland cadaaladu baa la hadalaya cadaaladda laga shaqeeyo madaxweynaha anagu madaxweynaha uu sheegayno laakiin waxaan u dusaynaa inuu dalka uu gacantiisa ku burburayo madaxweynaha isagoo gacantiisa ku burburasa waxa weeyaan waxyaabo aan la taaban baa jiro lama taabtaana Djibouti nooma dhaxeeyo heer caalami oo isugu gudbina maxaabista haddii dastuurkii aan lagu shaqeynay oo xeerkii dalka aan la dhowreyn oo dhaqankii ummadda aan la dhowreyn oo salaadiintii iyo madaxdii beelaha aan la dhowreyn dee halkee loo socdaa anagu garanayna kulmiye wakiil hore loo socdaa hore socoshada masadana dhashay saaka jirkayga jaraa'id aanu ku qabanayno xafiiska guud ee beelaha Garxajis gudidoodu ay leedahay waxaanu baaqana musaaka soo saaray waxa weeye Axmed Cismaan Geele oo la yiri dawladda Soomaaliland ayaa
daba socoto oo adeegaysa dawladda Jabuuti halka dawladda Jabuuti la doorashooyinkii bay faragelin bay ku haysay Somaliland marka waxaan maleynayaa macaashkeeda xukuumadda u soo saartay bay imankana leedahay noo soo celi haddii koox qabayaalatihiin oo dalkan iyo dadkan ku galgalanaysana way muuqan doontaa laakiin waxaanu ka taaganahay anagu ganacsadaha Axmed Geele halka ay ka taagan yihiin salaadiinta beelaha Arab amba mataanuhu ayaanu waliba meel ka sifo ka taaganahay haddaad soo qaban kartaan amba qabataan مسؤوليته وحي كذا عدل كيدين كقاعد دونا. هل كان مانتا وحن شركة شرائط كقبرنا أنا جوعة جودي ذكر حاجة مستنبت كذا وحن هل كان كقبرنا شركة شرائط وأنا كجحد لينو كان عصدها أحمد عثمان جيله سيد الشيعي ويرك لبضة كسوق عادين لبضة ضل جيبوتي iyo Soomaaliland loo doonayay loo adeegsado sida warka lagu soo gaaray ama la sheegay waxaanu la qabnaa dareenka salaadiintii iyo uqaashii iyo waxgaradkii iyo beelweynta Arab ee ka hadashay ayaanu la qabnaa dareenka waxaanu la afkaarnahay inaan dhinka ganacsadaha ah ee dalkiisii jooga inaan inta loo yimaado si sharci darro dal kale loogu qaadin oo loo geyn ayaanu maxaan ku raahdaa aanu la dareenahay oo aanan ogolay waxaanu leenahay dalkan waa Somaliland madaxweyne iyo dawlad iyo shuruuc iyo kala dambeyn iyo baarlamaan buu leeyahay inuu dal kale oo adeegana maanta lama filin isagoo 28 sanadood mustaqillah ay soo taagnaa waxa muuqata dareenkaas oo qoladaasi sheegtay anana waa noo muuqataa inuu u adeegayo dal kale Djibouti la yiraahdo oo u adeegayo Djibouti oo inaan wax dana ku qabin waa inaan wax dawladnimo iyo wax aqoonsiga iyo wax walaaltinimo amina inaan ku qabin waa ognahay Djibouti koonfur markay tagaan madaxweynahooda iyo ciidankooda iyo baarlamaankooda iyo wasiiradooda way ooyaan oo ilmeeya inaan hal minute maalin kaliya inoomay qoslin iska daawino waxtarkooda saasaynu kala nahay iyagoo caynka inagu ah وعدوغينا كوبادا هادنا إنaynu u adeegno dawladeenu u adeegtaana waxa weeyaan waxayna qaadan karay waan la qaadan karay waxaan leenahay ninka ganacsadaha ah ee dalkiisii jooga ee dadkiisii dhex jooga ee xoolihiisa ku maqan yihiin Djibouti iyo hantigiisa isagana hal laga dabageeyo ka yeelmayna waxaan laga daayo waxaan leenahay dalka waxa sidii loogu talagalay dalku ha u socdo dawladdiinu yahay ha ogaado cadowgiisa iyo nacabkiisa ha kala garto dawladda iyo dalku iyo madaxweynaha iyo dawladda gebigeedu ha kala garato yaa cadow yaa nasteexa Djibouti waa cadowga Somaliland wana nu adeegnana yeelmayno